إلهي بان سبحانه وتعالى وقام هاد علينا مدشان قيمها بدل لي سوكان كاني oo ah xarika jar aan maanta ku sameeynay xafiisyada dawladda hoose Gibil ay ka hirgelisay afarta xaafadood ee magaalada dawladda hoose runtii hore bay u qorshaysay in magaalada Gibiley afar xaafadood loo kala qaybiyo oo xaafad walba runtii si dadweynaha ay dawladda hoose u shaqeynayso ama u adeegayso adeega loogu dhaweeyo afar xaafadood loo kala qaybiyo qorshahaasi oo ahaa in la sameeyo xaafad kastaana in adeegyadeeda gaar ay u hesho isla markaana xarun xaafadda lagu maamulo ay hesho hadda ka hor runtii xarumahan maamulku uu shaqeynayay laakiin guriyuhu kiray ahaayeen oo noomay suuro gelin hase yeeshee maanta waxa alxamdulillaah in xaafadihii guriyo dawliya oo ay leeyihiin oo ay dawladda hoose hirgelisay oo laga maamuli doono runtii aynu maanta xadhiga ka jarnay afartii xaafadoodba shaqooyinka ay qaban doonaan runtii waa shaqadii dawladda hoose ay shacabkeeda u haysay oo nadaafad leh oo hygiene ama sanitation leh oo arrimihii dhulka leh oo cashuuraha qabashadoodii leh oo runtii xiriirkii bulshada iyo daryeelka bulshada leh waxa ku xidhan halkan guddi xaafadu leedahay oo 9 xubnooda oo runtii iyaguna qayb weyn ka ah arrimaha nabadgelyada iyo iskaashiga bulshada si maamulka iyo dadweynuhu si dhow ugu wada socdaan runtii adeegyadaasi oo dhan baa ayaa aan ugu talagalnay xaafadahan in laga maamulo waxa alxamdulillaah maanta xaafad kasta inay leedahay iskuulkeedii hoose dhexe inay leedahay xaruntii hooyada iyo dhalaanka inay leedahay sariimadii sidoo kalena aan gacanta ku hayna inay yeeshaan garoomo xaafaduhu leeyihiin waxa soo raaca oo iyaguna xafiisyada nimanka barbar socda afarta iskuul ee hoose dhexe oo afarta iskuul baan u sameeynay garoomo yar rooga oo iyaguna runtii aan ugu talagalay xiisadii ciyaaraha lagu soo kordhiyo si kor loogu qaado tayada waxbarashada arrimahaas oo dhan waxa xusid mudan inaanu mashaariicaha dhamaantood ka hirgeliyeen dakhliga degmada magaalada hadda gobolka guud ahaan Sacaadatu Wasiir waxa noo socda oo gacanta lagu hayaa 9 mashruuc oo kala duwan oo garoomo leh oo wadooyin leh oo muxuu ahaayay xafiisyo leh 9 mashruuc hal mashruuc oo muxuu ahaa isaga imika aanu xayeysiinay mooyaane 9 kuba waxa weey degmada dakhligeedii ayaanu ka fulinanaa sharaf bay runtii noo tahay waxa iyaduna wanaaga Cabdiraxmaan oo kamida dadkii la bilaabay JPLG-ga Somaliland inuu maanta halkan goobjoog ka yahay iyadoo magaalada Gibiley mashaariicaha ka socda 90% laga fulinayo degmada 10 sano ka hor runtii xagga kale bay ahayd marka waxyaalaha runtii aynu ku faani karno ama mashruuc ha noqoto ama horumarka degmada ee la gaadhay ha noqoto qaran ahaanna waa meeshaynu u socono runtii haday systems tahay iyo haday tahay muxuu ahaayay guud ahaan wax qabadkaba oo waxyaalahan runtii rabno inaynu qaran ahaan gaadhno aad iyo aad baan Cabdiraxmaan idinka mahad celeynaa aqoontii aad siiseen 10 sano ka hor dawladda hoose maanta waa taa midhaheedii oo muuqdo dawladda hoose runtii iskeed isku maamusha xarumaha aynu xadhiga ka jarano xarun walba 6 qof oo shaqaalaha jooga oo dhamaantood wada digriya oo dhalinyartii rag iyo hablaba jaamacadaha dalka wax ku bartay oo maantana diyaar u ah in dadkooda u shaqeeyaan aad iyo aad baan runtii idinka mahad celeynaa ka soo qaybgalka kulankan UN Habitat maanta waxay u joogtay mashruuc aanu ka wada shaqeynano oo ah sidii wadooyinka number loogu sameyn lahaa guryahana number loogu sameyn lahaa property registration runtii rasmi ah loo hirgelin lahaa oo iyaguna ay wax bixinayaan anaguna aan wax bixinano insha Allah taala isaguna dhawaan bilaami doona oo aan aad iyo aad ugu mahad celiyno